kusoo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sar subscribe notification-kana furo siday kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee la soo geliyo channelka isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cashkan maanta wuxuu ku saabsan yahay what is a sentence? Waa maxay jumlad? What is a sentence? Waa maxay jumlad? Waa grammar, waa naxwi weeyaan casharku. Waa anigu waa Khalid Cabdi, halkan waa Somali Online Academy. La soco casharka naxwaha oo dhameystiran hadda. U baahnay barashada luqadda Ingiriisiga ma heli weydin chance aad ku tagto school ama fasal. Haddaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luqadda Ingiriisiga adiga oo jooga gurigaaga. Haddii aad danaynayso nagala soo xiriir WhatsApp numberka shaashada ku qoran. Grammar naxwi ku saabsan casharku. What is a sentence? Waa maxay jumlad? What is a sentence? Waa maxay jumlad? What is a sentence? Waa maxay jumlad? Sentence jumlad waxa weeyaan waa qeexitaanka qabso qeexitaanka imkaba. Sentence jumlad is an arrangement waa isku habayn is an arrangement waa isku habayn of words la isku habaynayo ereyada la isku habaynaya. Is a sentence jumlad is an arrangement waa isku habayn of words la isku habaynayo ereyada la isku habaynaya. That makes taasoo samaynaysa si ay u samayso complete sense micno dhameystiran. Complete sense micno dhameystiran ereyada ayaa la isku habeynaya si ay u sameeyaan micno dhameystiran. It must be waa inay noqotaa markaa kelmadda la sameeyay meaningful mid micno sameynaysa micno guud mid sameynaysa waa noqotaa kelmad micno leh. Unacceptable noqotaan mid la aqbali karo kelmad la aqbali karo waa inay noqotaa kelmaddu marka la sameynayo waa inay noqotaa mid micno sameynaysa sidoo kale waa inay noqotaa mid la aqbali karo oo ya aqbalaya to the speakers waxa aqbalaya dadka ku hadla of the language luqadda ku hadla waa inay kelmad ay aqbali karaan noqotaa wax la aqbali karo sidoo hadda kelmadda aqbalisteeda waxa weeyaan imika ka taado dhagax baan diro kala kelmad la aqbali kara maaha marka waa in la aqbali kara micno waa inay sameynaysaa kelmaddu oo waan haddaad hada kaliya imika micno sameyn mayso marka waa inay kelmad la aqbali kara noqotaa. And sentence is an arrangement jumlad waa isku habaynta of words ereyada that makes kuwaasoo sameynaysa complete sense micno dhameystiran. It must be waa inay noqotaa meaningful mid micno sameynaysa unacceptable mid la aqbali karo waa noqotaa ya aqbali to the speaker dadka ku hadla of the language luqadda ku hadla way noqotay kelmad aqbali karto. Examples tusaalayaal Mary singing Mary way heesaysaa Mary singing Mary way heesaysaa marka uu kelmad micno sameynaysa oo dhameystiran. The room is clean qolku waa nadiif laba the room is clean qolku waa nadiif stop waa joogso come in please waa soo gal marka kelmada micno sameynaya kuwaasi halkaas uu lagu joogo doona cashirkeena maanta naga si time. Assalamu alaykum. Arday baan ahayo oo waxii wadankan ahayo oo waxii wadankan